Gudida Nabad Galayada G.Togdheer oo horkacayo Barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer ahna kusimaha Barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Nafaqo taliyaha ciidanka booliska gobolka Togdheer gaashaanle dhexe Cali Gaadiyare taliyaha ciidanka asluubta ee gobolka Togdheer gaashaanle sare Jaamac Baadi duqa degmada Burco Maxamed Yuusuf Muraad iyo mas'uul ka socday wasaaradda horumarinta deegaanka ayaa kormeer ku tagay deegaamo hoos yimaada gobolka Togdheer gaar ahaan degmada D.Duruqsi deegaanadaasi oo laga waday deegaamaysi cusub oo sharci darro ah isla markaasina Gudida Nabad Galayada gobolka Togdheer waxay amreen in la baabiyo deegaanadaasi Barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer iyo Gudida Nabad Galayada ayaa mid u dul istaagay 5 balli oo sharci darro ah oo laga hirgeliyay deegaanadaasi isla markaasina amray in la baabiyo waftigan ka socday gobolka Togdheer ayaa kulamo la qaatay qaar ka mid ah dadyoga ku dhaqan degmada D.Duruqsi ee gobolka Togdheer dadkaasi oo xurguf in muddo soo jiitamaysay u dhaxaysay munaasabadaasi ugu horeyntiiba waxa ka hadlay Barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer ahna kusimaha Barasaabka Maxamed Cabdilaahi Nafaqo taliyaha ciidanka booliska gobolka Togdheer gaashaanle dhexe Cali Gaadiyare taliyaha ciidanka asluubta ee gobolka Togdheer gaashaanle sare Jaamac Baadi duqa degmada Burco Maxamed Yuusuf Muraad iyo mas'uul ka socday wasaaradda deegaanka kuwaasoo dhammaantoodba sheegay wax kasta oo sharci darro ah in la baabinayo meel kasta hawlgalka iyagu wuxuu yahay sidaan hore u sheegayba meel kasta oo deegaamayn cusub ama balliyo cusub ama baraaga cusub laga sameeyo ama dhis cusub intaba oo sharci darro ah sharcigaanu ku fulinaynaa biidnillaahi alkariim sharciga lagu fulinayaa waana la baabi'inayaa inta ku hawlana iminka niyadda ku haysana sidaasaan u sheegaynaa in laga baabi'in doono waa uga digaynaa inta iminka maxay hayteen ay qodayna iyagana waanu ka baabi'inaynaa waa arrimo si sharci darro loo qoday oo aan sharciga waafaqsanayn arrintaana tallaabadii ku habboonayd waanu ka qaadnay nin baan u dirayaa gobolka Togdheer dhammaantood cid kastoo khilaafta nidaamka iyo sharciga ama deegaan ha noqoto ama crime iyo isku day ama dhinac kale ha noqotee sharciga ciddii khilaafta sharcigay dhadhabin doontaa waana u diyaar garownay haddii alla ka dhigo ciidan ku filan oo u tababaran nidaamka iyo sharciga ayaanu gacanta ku haynaa insha Allah bismillaahi kariim dadweynahana waxa looga baahan yahay mar walba ama bulshadeena inay ilaaliyaan sharciga dhowraan inay u hoggaansamaan inay cadifada iyo qabyaaladda iska daayaan inay wada noolaanshaha iyo deganaanshaha ku wada noolaadaan oo ku dhaqmaan cidda doonaysa inay maxaan ku idhaahdaa wax qabsatana waa inay sharciga martaa sharciga u hoggaansantaa waxa kaliya aan halkan anigu uga faa'iideysanayaa ka wasaaradda deegaan ahaan waxa weeye dhulka ilaahay baa leh dawladdaana ka mas'uula ciddii aan sharci u marin ama aan sharci wax ku qabsan ama aan sharci ku degin ama aan sharci wax ku qodani hadday sharciga baalmarta wixii ay qabato waa sharci darro waana la baabiinaya balli ahayd qalad sharci darrana waa la aasay wixii kale la kala tirsanayna wixii degmadeeda naloo qaybiyay la yiri gacan mareeyna waan gacan mareeyna dhanka kale odayaasha iyo waxgaradka ka soo jeeda degmada D.Duruqsi ayaa u mahad celiyay Gudida Nabad Galayada ee gobolka Togdheer sida fiican ay u dhexdhexaadiyeen waxayna sheegeen inay soo afjareen colaad iyo xurguftii u dhaxaysay dadka wada dega deegaanadaasi amni darro ka jirtay degmada D.Duruqsi dhameeyayna sida ahaydna u dhigay waanay dhameeyeen si wanaagsan ayay u dhameeyeen waana ugu mahadnaqaynaa runtii dadka deegaankuna way qaateen wixii ay la socdeen madaxdaas oo ay la timi halkan ay u timaadeen arrimo nabadgelyo dartiid iyo khilaaf ka jiray si wacan ayay u dhameeyeen khilaafkii balli iyo muxuu ahaayay xogay xiisadoo ka taagnaa arrinkaasi muxuu ahaayay si qurux badan oo sharaf leh oo karaamo leh ayuu muxuu ahaayay u soo dhamaaday ilaa 4 balli waa la aasay halkan shaqaaqadii halkan ka socotay in muddo oo ah balliyo iyo xoogay yar oo qaldaad oo ka dhacay Gudida Nabad Galayada ee gobolka Togdheer oo horkacayo Barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Nafaqo ayaa muddooyinkii u sameeyay maamul dejin iyadoo cid kasta oo wax tabanaysana halkeeda ugu tagayay ma aha markii horeysay arrimo noocan oo kala soo afjaraan balse waxay soo taraya dadaalada xoogan ay ugu jiraan arrimahan oo kale Maxamed Wardi TV-ga qaranka degmada D.Duruqsi ee gobolka Togdheer.